isla laxbaadkan ay bilaawatay ciyaartii ahayd oo dhexmaraysay waa Bari Star iyo kooxda marka koowaad bilaabtay ciyaartii dhexmaraysay labadaasi kooxood koobkii loogu magac daray baroordiiqii Saada Cali Warsame dhammaantiin waxaan leenahay daawasho wacan wixii nataa'ijka ah insha Allah waxaan la soo socodsiin doonaa waqtiyada soo socdaan halkan uu la taagan yahay wariyaha macruufka ah Somali Channel Cabdulaziz Kulmiye oo maanta ka soo qayb galay ciyaartii baroordiiqii Saada Cali Cabdulaziz sida uu aragtaa qabanqaabada koobkan loo dhigay fanaanada qaranka Saada Cali marka hore waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan kaloo salaamayaa wadeenada iyo shaqaalaha telefishinka Canaakish oo uu agaasimo u yahay Xusni marka hore waxaan kaaga mahad celinayaa dadaalka weyn aad u wadid ummadda Soomaaliyeed waxaana filayaa in aad xubin muhiim ka tahay xaafadda Canaakish waayo wax walba oo la sameeyo waxa hormuud u ah iclaamka hadii uu iclaam jirin aragti ma jirto hadii ay aragti jirin aydaad ma jirto waxaan kaaga hambalyeeynaa mar labaad dadaalka aad ummadda u haysid waxaana filayaa dadaalkaaga inaad si laba laabi doonto isla markaana uu noqon doono mid caalami ah waxaan u hambalyeeynaa dhammaan bahda Canaakish oo ku guuleystay run ahaantii in ay ka hormaraan in xaafadaha jiddo dhan Canaakish ayaa waxay noqotay xaafadda kaliya oo leh guddi aad iskugu xiran isla markaana leh warbaahin madax bannaan oo ku hadasho codkooda waxaana ugu mahad celinayaa adiga iyo dadka kula shaqeeya markii ugu horeyso marka xigta arinta koobka marxuumad Saada Cali Warsame waxa uu noqday koob taariikhi ah isla markaana run ahaantii aad loo soo agaasimay oo aan filayo in uu yahay mid taariikhda ka galay xubin muhiim ah waxaana leeyahay qabanqaabada guddiga Canaakish waxay noqotay mid aad u wanaagsan ka Somali Channel ahaan waxaana la guddoonsiiyay hadiyado telefishinka waxa la guddoonsiiyay hadiyad aniga wariye ahaan waxa la guddoonsiiyay hadiyad agaasimaha telefishinka waxa la guddoonsiiyay hadiyad intaasna waxaan ugu mahad celinaynaa mar labaad guddiga qabanqaabada ee xaafadda Canaakish maxaad soo jeedin lahayd guddiyada ka jiro xaafadaha kale sida ay u horumartay xaafadda Canaakish oo kale in markaas ay la qaataan ila lijaan qaataan hawsha socota sportiga wallahi waxaan dhihi lahaa dhalinyarada aqoon-yahaniinta ah sida Xusni waxaan jeclaan lahaa in ay xaafadooda horumariyaan isla markaana dadaal weyn ay muujiyaan maaragtay si xaafadda loo horumariyo waxaana ugu baaqayaa dhammaan guddiyada xaafadda in ay gacan saar la yeeshaan Xusni asiga ayaa gacan ka siin doono sidii ay u samaysan lahaayeen warbaahin maxalli ah isla markaana ku hadasho codka xaafadooda aad iyo aad u mahadsan tahay ninkaasna wuxuu ahaa Cabdulaziz Kulmiye khayr ayaan ku dhaafnay waana u mahadsan tahay aad iyo aad u mahadsan tahay codkaaga aad ka dhiibatay telefishinka Canaakish halkaan oo ay ka socoto ciyaartii la baroordiiq ee loogu talgalay fanaanada qaranka Saada Cali halkaan uu nala taagan yahay agaasimaha Somali Channel Engineer Abuyo adigoo hawshaada ku sii jiro maanta maxaad fariin aad u diri lahayd ummadda Soomaaliyeed iyo tanjaaliyada bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan u mahad celinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala kadibna TV-ga Canaakish maanta fursadan in soo siiyay oo inaan maaragtay halkaan tacsiir ugu dirno marxuumada Allah u naxariistay fanaanada Saada Cali Warsame waxaan Allah subhanahu wa ta'ala ugu baryaynaa inuu qabrigeeda waasac ugu dhigo dambiyadana Ilaahay u cafiyo jannada firdawsana Ilaahay inuu ka waraabiyo tan kale dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin ayaan tacsiir u diraynaa waxaana markale aad iyo aad ugu mahad celinaynaa TV-ga Canaakish ee sportiga oo agaasimo ka yahay mudane Xusni Orolojo iyo dhammaan guddiga Canaakish gaar ahaan guud ahaan sportiga Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay qofkaasna wuxuu ahaa injineer Abuyo oo codkiisa ka dhiibanaya aad iyo aad u mahadsan tahay mudan gudoomiye Jubba oo ah qalantoorihii qaranka halkaan oo taagan Jeelani Barfanka asigana ah gudoomiyihii koobkii socday ee aqoon-yahanada hadda halkaan waxaa la taagan Aweys Amin Abdullahi Kaboy oo asigana ah gudoomiyaha badamaha Jidda Cabdulaziz number 1
أويس أمين سيدا واركتا مانتا كوب كان لو قبتay xaafada Caneekish oo lagu talgalay koob aha koob baroordiiq oo lagu talgalay fanaanada qaranka Saadi Cali والله وقت التلفزيون كعنيكش قاعد حق جعلي أنا نقول التلفزيون كبعض سبورتيغا waayahay bahda isboortiga walbana diyaar u yahay inaa wax u qabto telefisyoonka aragtidaada ka dhiibo والله عرفت عود نك سمي ورد إنا أول الله كسيو نك سبورت أو نك سبورتيغا أو كالمي هايو أو وخوا هايو سومالي ورد مجعلة لكن سومالي وحنا وشيجينا أنا سبورتيغا أو إهن خويل إهن وهنقولن قالوا راديني ما قدروا حمصوا بيها ولا الكيجا مرنا ساعة كيجا مرنا أوديك سبورتيغا عم علي باشي أو أنا سيجا أنا علي باشي ما دام أود سبورتيغا أو كيمد ميلدر أو ركبان أو شاغن أيمن لك أو أما عليك سوقف قلي وحو مهدينا نويا ما أنت أودي سبورتيغا مركز ننكس وحو شاغنا على باش نويا أودي سبورتي كديدا يكيلا وقالانو أم علي أودي سبورتي أم علي مقدمين هذا mahadsan tahay haddana halkan waxaan wareysi ka qaadanaynaa gudoomiye Cali Baashi oo ahaa asigana gudoomiyaha qaranka oo haddana kamid ah gudiyaasha sharbadle ama Cali maanta aad ka soo qayb gashay koobkan oo baroordiiq ah loogu talgalay fanaanadii qaranka Saada Cali maxaad ka dhiiban lahayd ra'yigaaga ama aragtidaada qaban qaabada koobka sida loo qaban qaabiyay بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون marka hore marxuumad qaran ah ayaan naga tagtay Saada Cali Warsame ilaahay oo ka baryanaa qabrigeeda waasac u dhigo jannat firdawsna geliyo amiin mid labaad waxaan u mahadcelinaa xusni reer Caneekish oo qaban qaabiyay inta qaban qaabisay koobkan loogu talagalay ummadda Allah u naxariistay oo u mahadcelinaa meeshii lagu dhigay iyo ragii ka dambeeyayna waxaan leeyahay wiligiin sii wada barnaamijyadan oo kale isboortina waa barnaamij aad u fiican hana ka cajisanina inay waxa fadhiyo Muuse Goobe asan la faro sports odayaasha Caneekish ku jiro oo leeyahay Muuse Zimbarka hore aan sii wada wax khilaaf ah sportiga ninka gurigiisa nadiifiyo ayuu guri kale u soo qabtaa markii Caneekish ay waaxid noqoto gacan waaxid noqoto in ay xaafadaha kalena gacan ugu yeerto si ay midnimo weyn loo sameeyo sportiga magaalada Jidda la mideeyo waaxid laga ka faa'iideysanay fursadda qaaliga ay siiseen ilaahay oo naxariisto waxa naga dhintay sports ah soo maray Ingiriiska ku dhintay waxa kaloo sabtigii hore magaalada Makka al-Mukarrama lagu dhintay macallin Daahir Usmaan Faarax Daahir Gacmi oo ciyaartoydii hore ee Soomaaliya rasimaadkii ah aniga isku naadi aan munishiifka u wareegaynay aniga waxaan ka tirsanaa kubadda kolayga asna kubadda cagta leelay waxaan leeyahay ilaahay samray imaan naga siiyo waxaan rabnaa inaan qaban qaadin hadii Allah idmo koob sidaan oo kale aan u maamuusino soo maray aad iyo aad baad u mahadsan tahay Mr. Cali ama Jaale Cali codkaaga aad ka dhiibatay TV-ga jaaliyadda Soomaaliyeed ee khaas ahaan u leedahay xaafadda Caneekish haddana waxaan dhinaciisa fadhiyay gudoomiye Muuse Goobe asagana daawanaya ciyaartii halkaas ka socotay mudane Muuse aragtidaada ama ra'yigaaga aad u soo jeedin lahayd jaaliyadda ama baroordiiqa koobkan oo lagu talgalay fanaanada qaranka Saada Cali bismillah أول مرة وحن لها إنا لله وإنا إليه راجعون ماموس يوم حد الخامس وحاله إلهي كسوكو ددكي خبخاوية سود بردي أنا ملحومة سادة علي Warsame كان كلا أقدر أنت شيء أي الله دقي كوب كان
وحالو ما موسى سعد علي وسلم الحمد لله لو نحليستو أنا كان علينا أهلدي وخراودي سمري ما الله هذا لبعض فتر سنة يا ولكن معلن كان أمل سوى الدلني حافظ سوى الدلني داهر قامي محل أها إنجليزكا مكة أو إمادة مكة خارجة خواني أكتر أسجوعي وحلين هاي هيو معلن سومري أسينا ويارك أو كنت أنت إنجليزكا لبضت ولكن علي سوهر وشاقي أنا سكوكوها هاجرين علي باشي وحلين هاي سمري إيمان الله هاي نجسيو أهلدي وغيريودي هذا نوع أنقلنا هاي سمري إيمان الله نجسيو صاحب كاغوها غرب كاغوها قعال كاغوها marka samari iman Allah naga siiyo waxaan leenahay intii soo qabanqaabisanay ajri xasanaat Allah ka siiyo waxaan leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh aad iyo aad u mahadsantahay kaasna wuxuu ahaa Muuse Goobe khayr ayaan rajaynaya bismillaahir rahmaanir rahiim halkaan uu nala taagan yahay gudiyaasha ama odayaasha xaafadda Caniikish Ismaaciil Bakshaan oo asagana codkiisa ka dhiibanayo koobkii baroordiiqa loogu talgalay fanaanada qaranka Saadi Cali Warsame sida uu aragtaa gudoomiye Ismaaciil qabanqaabada koobka loogu talgalay fanaanada qaranka bismillaahir rahmaanir rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah walhamdulillahi rabbil aalamiin wallahi koobka sida loogu talagalay waa si aad iyo aad waxaan ku faraxsanahay horta ummadda Allah yarxamo يعني جنة الله دل كذا يعني عادي عاد صومال لنا عرق كحدي لأن ما أنتنا يعني كل نفس ذائقة الموت واللي هو دمنا إلى يوم نحرسته مرة ثانيا وهو أنك كوبان وحقوق تلقلني يعني مرحومة سادة مركا يعني إن لله وإنا إليه راجعون ثانيا كوبك وحاول نومد ماذا سيحب سمله وفي عن وهددي له لأنه وحنا قلت لك لأنه هورينا معها كوب عن سميني وأنت نقدمت لي ونقصني وبدن باجرة مركا تاسنا وحاول جديد إذا أعلنا هي يعني سببتها لأنه أنا مدام السعودية العربية قلنا هاي لأن الشباب تينا ما شاء الله تبارك الله لأنه ما أنت إلا حساسيو درين كوضا إن إليهن وطن ليراد الصومالي إن إليهن إلا درين سيو ثانيا عيارها استحقلك بالشدة لأن تاس أهم وين أقول لنا هاي إن الصومالي دي قبيلك كل رقمي إن كباب إنه رئيس ولا الصدانو يعني كي أو وقوي جوجي كي أو كونفر جوجي بحال إنه هذان أيان وقت هلقلني برنامج كان أو جدة أو كوبكا ثانيا وحنا محكوني أيام سوجيدنا يا لأن التلفزيون كصومالي شرنال ولأن كالن وين كقادته سامبر يعني أو اسمه كنتو عيالك أو عيال سيسو أيقون مانتا عندنا مشاركة بالسنين أو يعني إسكا وقبسة كشقيان أننا وحن قرب تاجنا هاي إنان وحي أيقا قبطان أننا إنان لقبنا مدام أننا أنجوبنا وطن كان السعودية العربية أو قرب إسكا لأن مانتا يعني وطن كاجا إهان ترين كجوك واي مركز تاس وحن ولدنا لنا هاي إن شباب تسوق كوريسا إنكم مددالينو حتى بفرصة داس أو وطن كان أنجوبنا أين السيان لأن أنا وحاول جددنا لا يردنا هنا عياره هيتسنو بيرت النين ولي بوطن بولي هي عيال كان بنو حيسوق إيمان كرام بيرت وطن كودا لأن إن لحساسية إن بيرتو لاعبين أو مهم أو وطن كوح كمان كرو بيري أو كعياره كرو وطن ماذا برناكا هنا كده حلنو يعني تاسع لأن أول جددنا تاسنا وحنلاقي هاي والسلام عليكم ورحمة الله. هذا ما تنتهي حتى هل كان وحافظي قدياشي وما أنت داونا يا رجال هل كان كسعته سلا قدومية جوجو عيارتويدي مركا ودين جري مركز كوحدة SYL iyo kooxda la dhaho Cameroon oo ku magac dheer khaasay asagana maanta bankiin ku jiray ciyaartii halkaan ka socotay ee koobkii baroordiiqa loogu talgalay fanaanada qaranka
maxaa ka dhiiban laheeday maadaama aad tahay ciyaartooydii hore والله أدي هذا يوم فرح سنة ما دام أنا قاعد أنا كوتش أم فديو وحوجا وصوت تأخيري ميل وحم صوت تأخيري يعني شغل صوت تأخيري أدي هذا فرح سنة ما دام ولي بقى خدت عيارها كل حاجة ولا لاعب يعني وقديمة هاي لكن إن شاء الله عن بقى أنا نسي عيار ولي maxaad fariin u diri laheeday ciyaartooyda reer marka cadeey sida tinjire iyo odayaashii hore meesha ka nool sida xaseey iyo dadkaas maxaa u diri laheeday dadka ay ciyaari jirteen أدي يا سلام يا لاعبين أنا العيار جري سيدا حسن حاج ويا يونسو محمد عمر يعني عباس خلوعو يعني تنجرة يعني توبرها يعني يوسف عمر ورسمة بيكلو يعني عيارتوي بدن أدي أنا العيار جري يا جرتو عيارتوي أدي يا سلام يعني وحنجعلها يعني قريب الناس أرك وحنجعلها أدي هذا وما تصنتهاي أدي هذا وما تصنتهاي خاصي halkaan oo haddana wareysi aan ka qaadayno guddiga ama kaleete gudoomiyihii koobkii socday ee aqoon-yahanada Soomaaliyeed gudoomiye Jeelani Barfaanka maxaa ka dhiiban laheeday maadaama ay soo dhamaatay ciyaartii oo hadda guusha ay qaaday kooxdii Awrigoorada ku soo guuleystay Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh garanti aad mahadsantiin runtii koobkan waxaa la dhigay koob Roodiqa oo lagu magac daray Saad Ali Allahumma labada kooxood waxay la yimaadeen ciyaar aad u firfircoon waxayna guusha hadii ku raacday Riigo ama gool tuurasho kooxdu waa bari waxaana rajaynaynaa insha Allah maxaad u jeedin laheeday maanta koobka ku guuleysatay koobkii Roodiqa ah والله رنتي كوبكا حماسة رنتي إن وبري ستار ما دام التبيت ديار ما شاء الله وعليها ما تين عندنا طيب سلام هذول يراد كوبكي تقول يا رجال هذه هذا ما تصنت هل كانوا حنولك تاجن ألانتوري أما خلت أربيتري قرنك Soomaaliyeed Mr George maxaa ka dhiiban laheeday asigoo hadda duubitaankan ama channelkan ay leedahay jaaliyada Jidda xaafada Caniikish laga leeyahay agaasimaheedna uu yahay Xusni Orolojo maxaad u diri laheeday ciyaartooyda tan dalka iyo tan dibadda dadka jooga ciyaartooyda dalka waxaa u diri lahaa inay balooniga heerka u qaadaan maadaama ay yihiin mustaqbalkii berito waxaa lagu baahan yahay sii wadaan dhiilaan maadaama ay yihiin heer sare ah waxaa lagu baahan yahay deganaan iyo balooni wanaagsan inay ciyaaraan mar kasta sporti waa aniga bulsho oo systematic bulshada waana baahiweynta sportiga Jidda lagu rajeynay insha Allah maxaad u diri laheeday ciyaartooyda maanta ka dhisan khaasatan degmada aad ka soo baxday marka cadeey maxaad u diyaad salaan u diri laheeday ciyaartooydii halkaas ku sugneeday wallahi aad waxaan horta halkan ka salaamayaa ciyaartooyda degmada marka cadeey oo ciyaar wanaag waa bari oo maanta waxay meesha ciyaar wanaag aad u wanaagsan labada dhinacba ciyaartooyda aad u fiican oo heerkeeda aad u sareysa oo ciyaar degan oo nadiif ah ayaa la ciyaaray galabta waxaan leeyahay mustaqbal wanaagsan ee ciyaar fiican insha Allah aad iyo aad u mahadsantahay kaas wuxuu ahaa حكمتي أما كلاته أربيترها جورج هذا وما سنته عندنا هل كانوا حانسين دبي جلينا كوبكي أو هذا سنتي كوحدة وبري وكدي وايو قدومية محمد دنب أحسن أنطورة هذا حق برضه كله هذا يصير كذا halkaan uu ku qaaday toobari waa bari mudarribka ama tababaraha ugu fiicnaa soo baxay qof waxdiis iyo mar soo عسلي أحسن كابتن halkaan oo Xuseynay ugu qaadanayo kabtannimadii kabtanka ugu fiicnaa أمير ماجد
ياك أسلوب على دورة halkaas ay ku qaaday guushii kooxda waa beri oo koobkii ku qaadatay